waxaa sii kordhaysa cabashada ka imaanaysa qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ka cabanaya cadaalad darro weyn oo loo qaybiyay matoor biyo dhawaan lagu qaybinayo gudaha magaalada Beledweyne. Odayaashan oo ah dadka beeraleyda ah ayaa sheegay inaysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne oo matoorada lagu qaybiyay qaabeeleed. waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo la hadlay warbaahinta SBC xafiiskeeda magaalada Beledweyne oo tabanaya cadaalad darro lagu sameeyay. waxaa la siiyay dad aan shaqo ku lahayn, waxa uu sabab ah nin walba wuxuu siiyay maamulka dadkiisa, kan gudoomiyaha gobolka wuxuu siiyay dadkiisa, ku-xigeenkiisa wuxuu siiyay dadkiisa, kan degmada wuxuu siiyay dadkiisa, ku-xigeenkiisa wuxuu siiyay dadkiisa. inta kale ee degan gobolka Hiiraan waa cidna uma maqna ceelna uma qodna. waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Hirshabeelle Waare, ku-xigeenkiisa Guudlaabe, ra'iisul wasaaraha Khayre, madaxweynaha Farmaajo, gobolka Hiiraan kuwaan ay keeneen ma ahan kuwa samata bixin kara. matooradii aan xaq u lahayn oo annagoo beerley oo dadkii ku soo baxeen oo xameerta ku waraabsan lahay in naloo diiday, beesha jille naloo diiday, la siiyey dad aan mudnayn oo baadiye ka yimid oo shamboolada iyo matoorka aan kala aqoonin la siiyey. ay leeyihiin armeel ma geyni kariye wax walo iga reebtay ark degmada horteeda lagu gadana. dhibkaasna nugu aas ka dhacay gobolka Hiiraan, gudoomiyaha gobolka, degmada, ku-xigeenkiisa, gudoomiye ku-xigeenka gobolka, afartaas cadaalad darradaas ay sameeyeen. ummadda wax loo dhiibto nin aqoon yahan ah wax loo dhiibtaa ama nin xagga diiniyad ka dhisana loo dhiibtaa. labada waxaan ahayn loo dhiibay, labada waxaan ahayn loo dhiibay sababtoo ah nimanka nagu qabti waaye in macnaha duulaha ku diidin meeshaan annaga qabiilkayna godka ugu jirnay adinka godka waxa waaye duulaha ku diidin dad adin soo gala nimanka niyir waa oo shafka noo dharbaaxday. waxay ummadda ahayd way xaq u lahayd nin walba qoyskiisa siistay. matooradana waxa waaye waxay u soo baxday dadka islaamka ah, dadka jiinka degan, ummadda u tabaalaysan. ummaddaasana koow aan ka nahay wixiina hal xabba ma ana qaadan. reejil haddii aan nahay hal gabar Allah ka dhiga ah oo magaca jillo u dhalatay ma qaadanin. ayagana min haduulaha ku diidin min 200 300 ay qaateen, ayagu baa isku damiyay oo qaatay ciddooda u qaatay. anagoo dadka loogu talagalay ah oo yaani jiinka degan oo beeraley ah oo dadka loogu talagalay nahay inaan matooradii waxba ka weyn. sidaas darteed waxaa noo diiday kan gobolka, gudoomiyaha degmada, kan ku-xigeenkiisa iyo wixii hoosay. waxaan idiin sheegaynaa mar labaad idinku celiyay madaxweynaha Hirshabeelle Waare, dadkaas aan dadka kala aqoonin oo tuulooyinka ka yimid oo waxna qori karin waxna aan qabsan karin in nagala wareejiyo. deeqdan matoorada ah ayaa si weyn uga socota qaybinteeda gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo dadkii beeraleyda ahaa ee mudnaa cabasho xoog leh ay ka wadaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacadii TV-ga caalamiga SBC magaalada Beledweyne.